Booliska Soomaaliya oo Muqdisho ku soo bandhigay nin ka tirsanaa kooxda Daacish. Taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigay xubin la sheegay in uu ka tirsanaan jiray Al-Shabaab haddana uu ka mid yahay kooxda Daacish. Ciidamada booliska ayaa waxa ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay Jaamac Xuseen Xasan oo lagu eedeeyay in uu horey uga tirsanaa Al-Shabaab. Waxa ay sidoo kale sheegeen in gacanta lagu soo dhigay xilli uu howlanaa aaska miino dhulka la geliyo. Ninkan oo magaciisa lagu sheegay Jaamac Xuseen Xasan ayaa booliska Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in uu horey uga tirsanaa Al-Shabaab, balse markii uu ku biiray kooxda Daacish oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya kana dagaalanta wadamada Syria iyo Ciraaq. Jaamac Xuseen Xasan oo ah ninka lagu eedeeyay in uu ka tirsanaa Daacish ayaa warbaahinta waxa uu faahfaahiyay halka laga soo qabtay iyo waqtigii uu ku biiray kooxdaas. Waxa uuna sheegay in uu ka yimid buuraha Galgala ee gobolka Bari. Eedeysanaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish horeyna uu uga tirsanaa kooxda xagjiriinta ah ee Al-Shabaab.